ومحسن تهاي بسم الله الحمد لله رب العالمين ساكي أباري سدح ساعة بر يا واحد علي دوم الحرية كأمن السياسة ده تليه عيدما الجوتو طبعا جوال كهيران تليه أورهذا يعني ودقمة كسرعه أنت سوحنا عن حول قلب بنانك أمر أشار وحق صوب حق دومها جوال كهيران إن أمانك وحلا غبط دونه haddii la hal ka dhigo ammaanka saaka waa bilawnay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo ciidamada militariga guuto tobanaad ee Soomaaliya ee gobolka Hiiraan hawlgalka waxaan ka bilawnay suuqa xoolaha ayaa ka bilawnay marka halkaas joogna waxaan la yiri burjida inta baabuur lagu haystaa ee baabuurta shacabka burjida inta marka tagnay tuugadii halkaas aan ku aragnay way kala carareen isla markii waxaan la yiri waxa baabuur lagu haystaa meel la yiraahdo bardheela halkaas markaan joogna waxaan aragnay baabuurtii meesha hogan markii gawaaridan arkaynina waxa uu soo bilaabatay xabad ciidamada markii isdifaacid ay galeen meeshaas waxa ku dhaawacmay tuugadii baabuurta haysatay maxuu ahaay ninka lento dhaawac ahnaasina waa cararay midna waa soo qabanay asiga qorigiisa waa kan isbitaalku yeelay hadda inta kadib waxaan soo aanay magaaladii ka baxnay ee Beledweyne boondada loo yaqaan boonda weyn markaan ka soo baxnay ayaa waxay nagu bilaaway xabad kala tuugadii jidka gashay qaybtoodii kaleento gawaari baabuur wadata ayaa nagu qabsatay dagaal xabad kaleento meeshaas waxaan ku guuleysanay in tuugadii baabuurkii ay wateen inaan ka soo qabanno ayagana ay fakadaan baabuurku wuxuu yeelaa xirada laba galaay ciidamada ay degan yihiin tuugii la soo qabtayna wuxuu yeelaa isbitaalka weyn ee degmada Beledweyne howlgalkaas insha Allah taala waa sida u bilaawday waxaan faraynaa aan u sheegaynaa beelaha reer Beledweyne cidii dan kale tuug jid ku jirto ha kala hadasho cidii kale into muxuu ahaay ciidamo beeleed jidku u jiraan ka baxsadaan amniga magaalada waa si saak u bilaawday amarkaas maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka bixiyay waxaan kala kaashan doonaa ciidamada militariga iyo kuwa amisom iyo maamulka iskaashanaya hawshaas qaban doona insha Allah taala hadii alla yiraahdo cid dan gaar laga leh ma jirto tuug cidii garb u siinayso ayay la mid noqon doontaa cidii tuug soo qabanaysana waa waxaan kaga baahanahay waa in nagala shaqeeyaan arrintaas hadii la raali ka dhigo shalay go'aan laga gaaray in muxuu ahay ciidamada muxuu ahay ciidamada beeleedka ama beelaha reer Hiiraan la wacay la sugu ma hayo waqtiga la wacay hadii ay yimaadaan dhibaato bulshada lagu dhibaataynayo waa la bilaabaa waqtiga la sugu ma hayo waxa la sugaa wadaad lama sugaa laakiin waqtiga la sugaa waqtigii loogu talagalay ka sugo hadii dhibaato bulshada qabato waqtiga la sugu ma hayo howlgalkaas waa bilaawday waqtigana waa nasiib waay in 5 maalmood 10 maalmood la sugaa dadkii odayaashii la wacay shalay howlgalkaas suuqa xoolaha laga bilaabay hadii ay yihiin military oo wax u dhima ammaanka يا هديه الشعب أمانك حدمة أنت بقى أنك هذا شرع يا صباحي لنا سوق ما هي وقت لا عيمي كسوق هذه بدعة وعلى حلنا يا ما ملكه يعيد مدى أماكن هو شو ودلنا إن شاء الله تعالى. مدن قدوم يسدان كور قبنا بقى ميليشيات بدنا يا مجالات كوسوغان dadka qaarkood waxay leeyihiin maleeshiyaadka magaalada maamulku talaabo kama qaaday oo dad gaar ah oo bartilmaameedsanaya arintaas maxaa ka jira aad ma santahay waxaan fili karnaa waa waxaas wax la sheegay cid anaga aan ka helayso doon in ammaanka la sugo ma jiri doonto hadii ilaahay raali ka dhigo cidii ammaanka wax u dhiman oo ciidamadaada waxayda banaanka geysato waxay kamid tahay kuwa waxna la sugaayaba waxay kamid yihiin kuwa waxna la sugaayo ammaanka la sugaayo cidii tuugo iyo shabaab inta la dagaalameysana waa soo dhaweynayna waxay kamid tahay kuwa ammaanka wax naga la sugaayo garab la siinayo laakiin cidii ka hortimaada amaan isugu wayso shabaabna wax ka qabo wayso waa cid loo baahan yahay in fagaarada lagu arko diilay raali ka dhigo maxaa keenay asleedahay xilligan maamulka gobolka uu ku dhaqaaqo talaabo hubka looga dhigayo maleeshiyaadka iyadoo aan ka warqabno in ciidamada maleeshiyaadka hore ay magaalada gaadiid dagaal xitaa ay ugu dhex wateen waxa loo socda waxa kamid ah waxaas in la soo afjarabo ma suurtagali kartaa in bartamihii magaalada maamulkii dawladda ciidamadii ammaanka sugaayay in lagu la dagaalamo ma la sugo doono insha Allah taala waxa la filaynayo waxa kamid ah in magaalada dhexdeeda ciidamo beeleed dawladdu kula dagaalami doonto waxaas waa la soo afjaraa insha Allah taala
عدي عدكاين dhageysanaysa muuqaalkayn arkayso ciidamadeeda ha kala baxdo magaalada ama ku soo wareejiso dawladda leenahay habac ka yimid waa dawladda laakiin hawshaas dib loo galay waad arkayseen saaki in xoogii muxuu ahay maamulka iyo ciidamada militariga iyo waliba waxa baaqi hawshaas oo gali doono oo loogana tala galeen amaanka gudaha ay ka sugaan ciidamada booliiska ay ku nabadsugudo intaba maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo dhamaan ciidamada amaanka oo kuwa amsoomay dheeraad yihiin amaanku waa la sugu doonaa cid kasto codka maamulka iyo kuwa militariga iyo kuwa ciidamada amaanka dhageysanada markiisaba ha kala shaqeeyaan maamulka si dadka shacabka ay nabad ugu saaxdaan si dadka shacabka ay nabad ay ugu safraan si dadka shacabka ay gurigooda ay muxuu ahay nolol ay wax ugu karsadaan intaas faa'iido laga ambaqaadayo ayaa waxaan sameey doonin hadda kadib in ciidamo beeleed iyo kuwa amaanku wax u dhimay cid kasta waa ahaatee in aan la weydiin doonin waalidiintooda iyo dad kaleba mudane gudoomiye magaalada Beledweyne marka qaarkood waxaad ku dhaxarkaysaa ciidamo qoriyo wata laakiin aan dareys wadan cid ay ka marqaataan aan la aqoon maxaa qorshe u idin ka yaala waa mahadsantahay waxaas waa laga hadlay shalay laga hadlay waxa hadda aan ka shaqeynayna waxaas waxa cod dheer mid gaababa looga sheegay iyo mid muuqaal iyo maqal labadaba ninkii aan dariis wadanin ciidan qaran ma aha waxa odayaasha dhaqanka beelaha shalay loo sheegay ciidamada soo qarameeya ama magaalada ka saar meelihii markaas oo ay ku xafidi karaan inay geeyaan loo mudul qaado doonin qor wato dhar shacab wato inuu shabaab yahay iyo inuu askari yahay iyo inuu gargaar u yahay inta lama ogaanayo insha Allah ta'ala arintaasi ha maqlaano hana ka diyaar garoobaan anu diyaar garoobaan inay maxaa ahay ay nin shacab oo dhar cad wato qor magaalada ku qaadi doono idin la karim hawlgalka maanta basmiyo ku eegayaan soo sii soconaya hawlgalkani waa sida u bilowday ballantii iyo muddadii maamulka iyo ciidamada ammaanka iyo beelaha ay kala dhigteen waa dhimatahay laakiin wadaad sugumaha waqti la sugumaha laakiin waxa la sugayaa wadaad la sugumaha waxa la sugayaa waqti haduu ka hor dhacaan waxba laga qabanaa insha Allah ta'ala